ninkan oo militariga Faransiiska hore uga mid ahaa kadibna ku biiray ciidanka booliska Faransiiska ayaa la sheegay inuu ahaa dilaagii loo yaqaan Legrand. ninkan oo wajiga tushtushka ku lahaa horena ay u raadinayeen ciidanka dambi baarista ee Faransiiska. ninkan gudaha Faransiiska waxaa loogu yaqaanaa Francos. dhiiggiisa hidisidaha ah ayaa noqday mid dhowr goobood oo dambiyeed lagu galay laga helay. dadka dilka iyo kufsiga oo iskugu daray ayaa waxay gaarayaan ilaa 10 qof gudaha Paris inta u dhaxaysay sanadkii 1986 ilaa 1994. hase yeeshee dhibaatadaas oo dhan waa ay raadinayaan ciidanka dambi baarista Faransiiska balse lama helin oo ayaga ayuu ka tirsanaa muddo gaaraysa 55 sano. faldambiyeedka naxdinta leh ee ninkan lala xiriirinayay ayaa wuxuu kii ugu horeeyay u geystay Céline Boulogne oo ahayd gabar 11 sano jir ah, waxaana la waayay gabadhaasi kadib markii aysan iman iskuulka sanadku markuu ahaa 1986. Virova ayaa lala xiriirinayaa 4 dil iyo 6 kufsi. hase yeeshee Mr. Seban ayaa sheegay in shaki uusan ku jirin in ninkan intaasi dambiye ka badan iyo kufsiyo u geystay. meydka ninkan dilaaga ahaa ee Faransiiska u dhashay ayaa laga helay guri kira ahaa. sawirka Lagela ayaa muddo 10 sano ah waxa uu surnaa dambi baarista dalka Faransa ee booliska Paris. kiiskiisa daawacnaa ayaa ugu dambeyntii guntiisa la gaaray kadib markii xaakinka gacanta ku hayay oo warqad u diray 750 askari kuwaas oo ka tirsanaa askarta booliska ah horena u soo qaatay tababarka militariga kuwaas oo la baarayay hiddasidahooda. 59 sano jirkan meydkiisa la helay ayaa ciidanka booliska ka tirsanaa wuxuuna hore ugu soo tababartay ciidanka militariga kaas oo noqday askar boolisa howlna gabay. 24 September ayay waayeen boolisku kadib markay heleen hiddasidihiisa oo noqday qofkii dambiyada badan ka galay magaalada Paris. xaaskiisa ayaa 27 September waxay soo sheegtay in ninkeedii la laayahay. meydkiisa ayaa la raadiyay halkaas oo laga helay guri ku yaala waqooyiga magaalada Paris. haweeneydii ugu dambeeyay oo dilay wiil ku hooyo ahaa oo lagu magacaabay Rajad ayaa sheegay in ninkan goobta u dhow dhismaha gurigooda oo ku arkay ka hor inta uusan dilin gabadha la dhalatay taasi oo ku taala xaafadda 19aad waqooyiga Paris. meydka Boulogne markii la ugu dambeysay la helay ayaa waxa uu yaalay dhuldhaca hoose ee dhismaha ay ku hoos jirtay roog. saraakiisha ayaa sheegay dambi baarista ah in gabadhan la iskugu daray kufsi, ceejo iyo tuurey. kiiskiisa oo walwal iyo walaac badan ku abuuray dadka Faransiiska guud ahaan. booliska ayaa dhankooda walaac badan ka qabay ninkan 35 sano ee baadagoobayeen haddana aysan haynin oo dadkii baabi'iyay. dadka uu dila waxaa ka mid ahayd gabar Jarmalka u dhalatay oo 24 sano jir ahayd sanadku markuu ahaa 1994 taasi oo lagu magacaabi jiray Layra taasi oo meydkeeda laga helay meel howda. sidoo kale waxaa ka mid ahaa gabdhaha oo dilka u geystay gabar 14 jir ah mid 11 jir ah. qofka looga shakisanaa muusan ahayn asaga balse hiddasidihiisa ee markii dambi baarayaashu ay raadiyeen ee heleen ayaa cadaysay inuu ahaa dilaagii qarsoonaa ee dalka Faransiiska. Mr. Zam ayaa rumaysan in dilaagan wax walba uu sameeyay la xaqiijiyay dhiiggiisa hiddasidaha ah. markii uu isdilay warqad ayuu qoray oo ku cadeeyay in dambiyadaas oo asagu galay dadkii la dilana uu laayay intii kufsiga. warqadaasina uu ku cadeeyay inuu asagu dambiga ka dambeeyay ninka la raadinaya ee magacaas la baxana oo asaga ahaa.